waxaan rabaa inaan idin sheego wixii ku soo kordhay xaaladaha ku soo kordhay COVID-19 wadankeena 24 saac ugu dambeysay xaaladaha cusub ee soo kordhay waxa waaye 51 waxa rag ah 32 waxa dhadig ah haween ah 19 haddaan fiirino da'da dadka laga helay meelaha ay kala joogaan horta Banaadir waxa jooga 37 Puntland waxa jooga 12 Galmudugna waxa laga helay 2 qof oo zaa'id ah dadka laga helay da'dooda haddaan fiirino marka laga bilaabo 20 ilaa 20 da'dooda boqolkiiba waxay yihiin 5 20 ilaa 39 sano da'dooda dadka ugu dhaxaysa boqolkiiba waxa laga helay 49 40 ilaa 59 waxa waaye 21 60 sano iyo intii ka koreysa waxa waaye 26 boqolkiiba tirada guud ee dadka laga helay xaaladda wadanka oo dhan waxay gaaraysaa 722 dhimashada waxa ku soo kordhay hal qof Ilaahay ha u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 32 waxa ka bogsatay 10 qofood tirada guud ee bogsashadana waxay isugu tagaysaa 44 aan ku dadaalno nadaafadda aan ku dadaalno inaan kala dheeraano aan ku dadaalno inaanan ma aragtay meelaha ciriiriga iyo buuqa aan galno aan ku dadaalno inaan ilaalino guud ahaan xakameeyno cudurka inaan yaani ku dadaalno gacmaha inaan dhaqanno saabuun ku dhaqanno afka inaan xirino meelaha banaanka marka loo baxaayo meelaha buuqa la galaayo in yaani wax allaala wixii ay dadka khabiirada iyo caafimaadka ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka ay ku taliyeen ee ka hortag ah in la raaco waa muhiim bulshada qaybaheeda kala duwan waa inay ku wada dadaalaan sidii wacyigelintaas loo badin lahaa loo gaarsiin lahaa Soomaaliya oo dhan hadii alla idmo waxa kale oo muhiim ah in qofka hadduu calaamadihi iska dareemo inuu wacdo nambarada loogu talagalay gobolada oo dhan ee uu ka helayo waano iyo sidii loola dhaqmi lahaa waxyaalaha uu ka cabanayo waa muhiim in guriga la joogo aan banaanka loo bixin hadii aysan muhiim ahayn banaanka markuu qofka u baxayana uu afka xirto uu is ilaaliyo uu yaani dantiisa intuu soo guto uu isla markii xaafadiisa gurigiisa ku soo noqdo joogida iyo xakameynta waxyaalaha ugu weyn oo cudurkan aan ugu hortagi karno tirada waa sii badanaysaa waxaad fahmaysiin in bulshada dhexdeeda uu fiditaanka sii badan yahay waxa jira xaalado badan oo kor laga socdo oo aan la xaqiijinin laakiin la tuhunsan yahay inay dadka qabaan ama ay u geeriyoodeen waxaan isku dayeynaa ka dawlad ahaan wasaaradda caafimaad in aan badino sidii awoodii baaritaan ee shaybaarka si loo ogaado cadadda inta uu gaaray looga qaato cabir bulshadeena sidoo ugu fidaa walaalayaal aan isugu dardaarno ilaan Ilaahay ka cabsano ilaan Ilaahay barino iyo inaan sameeyno wax allaala wixii tala ah oo aan cudurkan ku xakameynayno